bismillah bari baa waxaa jiray nin lahaa diiq ama diig qof kastaba siduu u garanayo sida caadada ah digaaga kan lab ee ah diiga ama diiqu subaxda hore wuu aadaamaa dadkana salaada u toosiyaa ninkii diiqaas lahaa wuxuu dhibsaday inuu dadka salaada u toosiyo codka iyo qayladiisa dheer ayaa subax kasta hurdada ka khasi jirtay maalintaasuu u yimid markaasuu ku yidhi haddaad mar dambe nagu cido oo codkaaga dheer aad sare u qaaddo baalashaan kaa tifi doonaa waana ka goorici doonaa diiqii wuu cabsaday wuxuuna ku fikiray in ay jiraan diiqyo ka duwan oo aadaami doona subax kasta sidaa darteed uu isagu iska aamuso isagoo naftiisa u baqaaya maalmo kadib ayuu haddana ninkii diiga lahaa u yimid haddana wuxuu ku yidhi haddii aanad sida diiga kale u ciyi karin ee facaaga ah maad walba sida digaagada dhadiga ah u cidid ee sideeda u qaylisood u socotid diigii haddana wuu tanaasulay wuxuuna ka baqay in baalasha laga tifo lana gowraco haddana wuxuu bilaabay inuu muddo u ciyo sida digaagada dhadiga ah markay muddo ka soo wareegatay ninkii diiga lahaa wuxuu iloobay wuxuu lahaaba inay diig ahaayeen markaasuu mooday digaagad uu u yimid wuxuu ku yidhi marba haddaad sida digaagada u ciyayso oo sideeda kale u socoto waa inaad ukun ama beed ii dhashaa oo aan subax kasta kaaga tashtaa xabad ukun oo aan ku quraacdo diigii wuu calaacalay wuu ooyey maalintaas ayuuna yidhi shallaytadaydii maxaan shalay u dhiman waayey anoo diig ah oo aadaamaya sheekadaa waxaan uga socdaa haddaad ibni aadanka u tanaasusho oo ay shakhsiyadaada iyo qofnimadaada aada uga tanaasusho marka dambe waxay ku moodayaan inaanad qof ahayn oo aadan wax qabsan karin laakiin haddaad halkaaga iyo naftaada iyo sidaa tahay ku taagnaato oo aad diiddo inaad ka tanaasusho qofnimadaada weligaa adoo sarreeyaad dhimanaysaa oo sharfan maanse aan lahaabaa waxaa ku jirtay naftan quruxda jamataay soo qaada sahay oo yaan quudku kaa go-in war qalfoof matihidee ruuxdaa ka qaaliya qaybtan muuqatee sare waxaan ku leeyahay ruuxdaada ka qaaliya qaybtan muuqatee sare qofna ha uga tanaasulin noloshaada adiga ah boqorka ugu sarreeya dunida guulayso